السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذن سلام أصحابتي غالية ميل والبا دنيا كجوكتان كسو دواada janalkeena asxaabey maanta waxaa idiin wadaa sida ugu fudud ee la iskaga ridi karo baruurta ama cayilka ama sida caloosha la iskaga jari karo sida ogtihiin dad badan ayaa caloosha kasoo buuran haday ahaan leed gabdho ama wiilal marka waxaan rabnaa sida ugu fudud ee la iskaga yarey karo cayilka ama baruurta ama caloosha soo buuran insha Allah laba cabitaan oo aad u fudud ayaa halkan ku sameysan doonaa markii aan sameysana sidaan ayay noogu soo bixin quruxda badan waa cabitaan aad u fudud aad cabi kartid waqti walbo asxaabteeda waxaa rabaa inaan idin sheego marka hore marka aad rabtid inaad caloosha iska jirtid ama aad rabtid inaad hilibka iska yareysid oo baruurta ay ka kala yaraato cabitaankan oo kale cabeysid waxaa lagaaga baahan yahay inaad cuntada badan sida baastada iyo bariiska aad joojisid waayo adoo baasta iyo bariis cunayo haddaad tirahdid caloosha ayaan jarayaa sahal kuma jarmanayso balse waxaan igala baahan yahay inaad joojisaan sida cuntada culculus bariiska baastada canjeerada muufada iyo waxyaabaha burka cad laga sameeyo marka burka qamadiga waxa laga sameeyo inaad cuntid waaye iyo waxyaalaha fudfudud cuntooyinka aan saas u cusleynin oo dhaqsi kaa baxayo sidoo kale biyaha cad aad iyo aad ayaa caafimaadka ugu wanaagsan yihiin biyaha cad inaad badsataan isku daya insha Allah hadda waxaan sameysanaynaa ama waxaan bilaabanaynaa sidaan u sameysanaynay cabitaankeenii oo caloosha waxaan rabnaa asxaabey inay dhuubo dhex yar aan noqono Soomaa gabdho badan caloosha kasoo buurata sidoo kale wiilashana kama marna oo wiilal badan ayaa jiraan oo caloosha ka buuran marka calooshan asxaabey qurux ma ahan oo waxaa laga yaabaa marka aad labisatid inay caloosha ka buuranta oo isteelka quruxdaadii ay wax badan ay ka qaldan yihiin marka waxaa waaye sida ugu fudud ee la iskaga jari karo caloosha inaad sameysid ama baruurta aad iska jartid baruurta badan asxaabey caafimaad ma lahan caatada ayaa caafimaad leh marka caatada zaaidkana ma fiicno buurnaanta zaaidkana ma fiicno dhexdhexaad qofka inuu yahay ayaa aad u wanaagsan asxaabey marka hadda waxaan bilaabanaynaa sidii aan u sameysanaynay iyo wixii aan ka sameysanaynay laba cabitaan oo aad u fudud aadna u macaan markii aad cabeysid aanu ku dhibeynin cabitaan ahaantiisa ayaan sameysanaynaa asxaabteeda soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad inta waxaan ku haystaa qajaarkan ayaan rabaa inaan wax yar ka goosto xoogaa kadibna aan jarjaro marka asxaabteeda haddaa wax badan sameysanaysid waa ka badsan kartaa balse hal koob kugu filan waxaa sameysaa subaxdii alasaydi markaa soo kacdid marka aad cadeysatid kadib ayaa alaabtan la cabaa waayo inay wax tarta ayaa la rabaa soo maahan adigoo quraacday oo calooshii ka buuxiya canjeero ama rooti haddaa dhahdo alaabtan ayaa cabayaa xoogaa culeys ayay kugu noqonaya caloosha degdeg ma kaaga jarayso balse calooshaada oo baahan oo subaxdii alasaydi hore ayaa lagaaga baahan yahay inaad alaabtan dhac ka siisid si ay caloosha ay wax badan ay uga tarto oo yacni baruurtii ay kaa goyso marka hadda qajaarka ayaa jarjaranaynaa asxaabteeda qajaarka isticmaalana waa qajaarka organic waxa aad isticmaaleysiin ha ahaadaan asxaabey wax dabiiciya marka insha Allah hadda qajaarkeena ayaa jarjaranaynaa kadibna waan shiidi doonaa insha Allah si yar yar ayaa u jarjaraya oo waxaan rabaa inuu si oo dhaqsi ah iigu shiidmo marka sidaas ayaa sameynaynaa insha Allah mar walba ayaa alaabta isticmaali kartaa subax walba waa inaad cabtid inta aad la dagaaltamaysid xeerta ama baruurta waayo dhaqsi ayaa rabnaa Soomaa inay naga go'do xeerta marka waa inaad sameysid maalin walba subaxdii alasaydi inaad cabtid 2 isbuuc haddaa soo isticmaashid wax weyn iskaga dareemaysaa jirkaaga isbedela iyo faa'iidooyin badan ayaa ka gaaraysin asxaabteeda marka wax walba la sameeyo natiijo ayaa laga gaaraa si tijaabi ayaa idin leeyahay faa'iidada iyo natiijooyinka ka gaartaan ila soo wadaaga insha Allah hadda waa kana waa soo jarjaran asxaabteeda marka hore qajaarka iska soo dhaq nadiif ka dhig maadaama aad shiidaysid marka hore nadiifa ku ahaado hadda waxaa soo qaadanay garaafada aad ku shiida lahaynay intaas ayaa ku shubanaynaa qajaarka hadaan isticmaalayo waa jab ma rabo inuu zaaid biyo iiga noqdo zaaidna uu adeeg iiga noqdo markaa shiito hal koob oo kaliya ayaan ka shiidi doonaa laba cabitaan ayaan sameysanaynaa asxaabteeda qof kasta midka u fudud ayuu sameysanayaa insha Allah hadda waxaa ku soo darsan nus koob biyo ah marka waxaa sameynaynaa waan shiideynaa asxaabteeda markii ay noo shiidmato
ayaa isku soo noqonaynaa. Inta aan shiidin ka hor waxaa ku darsanaynaa qaado oo malab ah. malabka aan isticmaalayo waa malabka dabiiciga ah maasha Allah. hadda waxaa sameynaynaa malabkii iyo inta yariista oo biyaha aheeda iyo qajaarka ayaa isku soo shiidayaa si fiican. markay isku soo dhex galaan ayaa isku soo noqonaynaa. hadda waa kana asxaabteeda waa soo shiidan maasha Allah. intaasay noo noqotay koob camal waaye. marka hadda waxaa sameynaynaa waa miiranaynaa waayo xoogaa yar gufur gufur ayuu leeyahay asxaabe. hadda waxaa soo qaadana liinta ayaa rabnaa inaan jab ku darsano inta aanan miiranin ka hor. horta liinta ayaa ku miiraya kadib ayaa sii shaqshaqi doona oo wixii gufur ee liinta leedahay iyo qajaarkii waxaas inaan rabaa inaan ka saaro oo qofka marka uu cabayo uusan dareemin in ay leedahay gufur gufur iyo wax oo dhuunta xagxaganayo. marka saas ayaa sameynaynaa. hadda liinta ayaa ku miiraya. liinta markaa kusoo miiri kadib ayaa waxaa sameyn doonaa waa miiraya ama waa shaqshaqaya si aan uga bixiyo gufur gufurkii waxyaabaha miraha iyo qajaarka qobkiisa sida uu noqnoqday. cabitaan seeke oo maasha Allah qurux badan inuu noogu soo baxo ayaa rabaa asxaabey. hadda waa kana waa soo miirana asxaabta. waxaa sameynaynaa liinta ayaa kusoo bognay. waxaa soo qaadanaynaa caano miir ama shaah miir midka u taqaanid. kadib waxaa sameynaynaa waa miireynaa insha Allah ilaa waxa dhan waxyaabaha gufur gufurka dhan aan ka saaro insha Allah. si fiican inaa isaga miirtid waa asxaabteeda waayo wixii kuskuuska dhan la rabaa soo maahan in uusan u gudbin koobka marka qofka uu cabayo uusan dareeminin in qajaarkii wixii laga shiiday wax aan ku dhibeynin waxaa dhuunta xaganin uu noqdo. marka waa inuu noqdo cabitaan aad u khafiif ah nadiif ah oo gudihiisa aysan ku jirin waxyaalo dhibaayo dhuunta ama carabka oo kale. marka hadda waxaa sameynaynaa waa soo miiranaynaa si fiican ayaa u soo miirayaa. markaa soo miiro asxaabteeda qaaliga ayaa isku soo noqonaynaa insha Allah. si tartiib ayaa asxaabey u miiraya waayo ma rabo inuu hoos u gudbo waxyaabaha gufur gufurka ah koobka inuu u gudbo galaaska ma rabo. bas waxaan sameynayaa si tartiib ayaa u sameynayaa insha Allah. hadda waa kana asxaabey waa soo wada miiranay intii meesha noogu jirto halkaas koob ayay noqotay waayo nus koob biyo ah qajaarkii liintii iyo malabkii waaye intaas maasha Allah aan ku dhahay inaba caadi ma ahan asxaabey. ma ku dhibeyso marka aa cabeysid waayo malab ayaa ku daran aad ayuu u macaan yahay. marka waxaa waaye subax walba ayaa koob isticmaali kartaa waana arki doontaa faa'iidada iyo natiijada ay leedahay insha Allah. hadda waxaa u gudbeynaa qaybtii labaad oo aan sameysanaynay. koobkan waxa iigu jiro waa sanjabiisha qoyan oo freshka waaye waan soo kariyay kadib markii ay soo qabowdo adeeg dhowr daqiiqo kadib ayaa u soo noqday. hadda waa kana waxaa rabaa in aan miiro. marka hadda waa soo miira asxaabe xoogaa waa istaaji kaamirada waan soo miira sidaan ayaa noo soo noqotay nadiifka badan maasha Allah. sidoo kale waxaan ku soo daray malab waayo inta waxaa ku haysta soo ma ahanin sanjabiisha qoyan oo kaliya ayaa halkaas iigu jirtay. waxaan ku soo darsado malab. marka malabka ayaa si fiican u dhex gelinaya u qasayaa si fiican iskugu milmaan ayaa rabaa insha Allah. maasha Allah asxaabe sidoo kale waxaa idinka iloobay cabitaanka dambe waxaa kusoo miira jab liin ah. marka waxaan ku dhahaa maasha Allah lagama sheekay kara laba cabitaan oo kala nooca oo kala macaan badan midba midka kaleeto uu ka qurux badan yahay waaye. waqti walba ayaa cabi kartaa balse waxaa kuu fiican oo kuu qurux badan calooshana dhaqsi ay kaaga go'i kartaa subaxdii alaseydii hore inaa cabtid. haddii aad tahay hooyo uur leh ha cabin oo iska daa ayaa ku dhihi lahay. marka dhalinyarada caloosha ay kasoo buuratay ayaa alaabtani aad ay u anficaysaa oo aad ay ugu wanaagsan tahay. marka waan filayaa asxaabteeda inaa ka
heli doontaan si degdeg ah si dhaqsi caloosh isaga jar baruurta isaga yaree waa cabitaanadan maasha allah inaba caadi ma asxaabteyda waa ku mahadsantihiin daawashadiina iyo sida quruxda badan leh oo aad channelkayga ugu xiran tihiin sidaas iyo nabadgelyo waxaa idinkaga tegayaa fiidiyowga xigo inta aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadeey assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته باي باي.